tani waxay ahayd markii ugu horeysay noloshiisa ee uu ilkaha cadaydo. wuxuu cadayday 3 eber daqiiqo oo buuxa ilaa afkiisu dhiig ka buursamo. aabihiis wuu u necbaa inuusan weligiis barin sida ilkaha loo cadaydo, wuxuuna u necbaa inuu saboolnimo ku dhashay. inkasta oo uu adoon ka noqday qoys taajir ah, haddana wuxuu ku noolaa qol hoose oo baranbaro ka buuxdo. markii uu arkay nolosha raaxada leh ee taajiriinta, wuu u adkaysan waayey mugdiga saboolnimada. si uu u farxad geliyo sayidyadiisa, Balram wuxuu u labistay sidii jinnigii Aladdin si uu ugu dabaaldego dhalashada loo shaqeeyihiisa. marwadii way sakhraantay oo waxay bilowday inay ciyaarto. markii ay aad u sakhraantayna, waxay dalbatay inay baabuur kaxayso. marka dadka taajiriinta ah ay waashaan, kama fikiraan cawaaqibka. musiibo ayaa si degdeg ah u dhacday. gabar yar ayaa si lama filaan ah jidka ugu soo muuqatay, waxaana lagu dilay isla goobta. waxay rabeen inay wacaan booliiska iyo ambalaas, laakiin Balram wuxuu u sheegay madaxdiisa inay isla markiiba tagaan. waddadu habeenkii way cidla ahayd, mana jirin kamarado. dhiiggii ayuu nadiifiyey, caddayntiina wuu u qariyey madaxdiisa, isagoo u malaynaya inuu yahay adeego daacad ah. laakiin weligiis ma uusan malaynayn inuusan badbaadinayn sayidkiisa, laakiin uu naftiisa halaagayay. maalintii xigtay, qoyskii sayidka oo dhan ayaa yimid, si aan caadi ahayn ugu naxariisanaya Balram, xitaa ugu yeeraya qoys. waxay u dhiibeen dukumiinti qiraal ah. Balram si buuxda ayuu u naxay. waxaa iibiyey sayidyadiisa isaga oo aan xitaa madhow helin, wuxuuna noqday dhibane si fudud. wuxuu ku socday waddooyinka isaga oo qaylinaya sidii nin waalan, isaga oo dareemay inuu ka xun yahay daanyeerada xadhkaha korontada ku jira. ma haysan wax doorasho ah inuu qadarkiisa aqbalo, isaga oo qolkiisa ku sugaya in booliis ku yimaadaan. maalmo ayaa ka soo wareegay, mana yimaanin qofna. waxaa soo baxday in dhibanuhu isna faqiir ahaa, qofna xitaa ma soo gudbin cabasho. Balram ma u baahnayn inuu dhibka u qaado sayidadan kadib. farxad buu jilbaha dhulka dhigay si uu u dhunkado cagaha sayidkiisa, laakiin waa la laaday. markii ay aragtay sida loo galay, addoonkii diiday inuu eeda u qaado. sayidadu waxay muran weyn la gashay milkiilaha. sayidadu waxa ay wax ku soo baratay Ameerika, maskaxdeeda oo ay ka buuxaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda. ma sii adkaysan karin nidaamka darajooyinka ee dalkan iyo kala saraynta qoyska. habeen dambe, sayidadu waxay si qarsoodi ah u heshay Balram, iyada oo rabtay inuu u wado garoonka diyaaradaha. ka hor inta aysan ku noqon Ameerika, waxay siisay xoogaa lacag ah sidii magdhow. markii sayidku ogaaday in xaaskiisu carartay, wuu xanaaqay oo Balram ayuu uga bixiyey dhammaan. isaga oo si buuxda u niyad jabay, Balram waxa uu ugu dambayn ogaaday in shay la bedeli karo oo keliya. sidaa darteed, si go'aan ah ayuu uga tegay mabaadidiisii hore. sayidkiisa hortiisa wuxuu ahaa addoon daacad ah, laakiin gadaashiisa had iyo jeer waxa uu maleegayay sidii uu lacag u samayn lahaa. marka uu baabuurka dayactiro, wuxuu soo gudbin jiray qaansheegadyo la buunbuuniyey oo mararka qaarkood shidaal ku iibin jiray qiimo jaban. isagoo garanaya jadwalka baabuurta qoyska mulkiilaha, wuxuu qaadi jiray rakaab marka aanay u baahnayn gaadhiga. waxa uu 2 toddobaad gudahood ku ururiyey lacag aanu 5 sano ka hor soo ururin karin. maalin maalmaha ka mid ah, si lama filaan ah ayuu u ogaaday in sayidka iyo wiilka weyni si qarsoodi ah uga hadlayaan in darawal cusub lagu bedelo. Balram ayaa akhriyey macluumaadkan, taas oo isla markiiba siisay dareen xoog leh oo xaalad degdeg ah. wuxuu qorsheeyey inuu mustaqbalkiisa ka fikiro. nasiib wanaag, waxaa jirtay waddo looga baxo, sababtoo ah siyaasigii ay qoyska mulkiilaha ahi maalgelinayeen ayaa doorashadii laga badiyey. waxaa lagu qasbay inay laaluushaan wasiirka cusub si ay xuquuqdooda u ilaashadaan. laakiin sarkaalku wuxuu dalbaday lacag aad u badan, 4 milyan oo rubee, si ay shuraakadooda u sii wataan. sayidka dada yar waa inuu lacagta ururiyaa. Balram wax walba wuu maqlay. isla markaas wuxuu ogaaday in fursadiisa dib u soo laabashadu ay hortaala. lacagtan waxay u qalantay khatarta, laakiin isla markaas wiilka walaashii ayaa helay, isagoo u keenay warqad ay ayaydiis warqad ka yimid ayaydiis. warqadda waxay ku sheegtay inuusan 2 sano lacag u dirin guriga oo ay hanjabtay, in haddaysan dhowaan lacag helin ay qoyska oo dhan keeni doonto si ay uga raadiso magaalada weyn. Balram oo xanaaqsan ayaa dharbaaxay in adeerkii. warqadan aan dareenka lahayn ayaa gebi ahaanba dishay dareen kasta oo uu qabay qoyskiisa. iyadoo aan waxba celinayn, Balram wuxuu go'aansaday inuu si buuxda u galo. wuxuu jebiyey dhalo biir ah, wuxuuna horay ugu qariyey kursiga baabuurka hoostiisa. intii uu waday sayidka dada yar oo lacag badan sita si uu ula kulmo siyaasiga, wuxuu si kadis ah baabuurka u joojiyey waddo cidla ah, isagoo sheeganaya taayir dalool ah si uu sayidka dada yar uga dejiyo gaariga. sayidka dada yar oo ka walaacsan inuu dib u dhaco, ma uusan 2 jeer ka fikirin. wuuna soo degay si uu u caawiyo bedelidda taayirka firaaqada ah. laakiin intii sayidka dada yar uu baabuurka hubinayay, Balram wuxuu dilay isaga oo aan ka labalabayn. markii uu baabuurka ku soo laabtay, wuxuu qayliyey si waali ah. xilligan wuxuu aakhirkii xor ahaa. kadib wuxuu habeenkii la cararay in adeerkii oo ay u tageen Bangalore dhanka waqooyi. Balram wuxuu magaciisa u bedelay magacii sayidka dada yar, isagoo isticmaalaya xeeladihii laaluushka ee uu ka bartay qoyskii milkiilaha. wuxuu si guul leh lacag ku siiyey taliyaha booliiska deegaanka, isagoo isticmaalaya awoodiisa gaarka ah. wuxuu amar ku bixiyey in la xiro dhammaan darawallada taksiyada magaalada dacwado kala duwan awgood. isagoo ka faa'iidaysanaya meesha bannaan ee suuqa, Balram wuxuu aasaasay shirkad taksi u gaar ah. isagoo saboolnimo ka yimid, ma qaadan qaladaadka dadka hodanka ah. Balram weligii ma dib u dhigin bixinta mushaharka darawalladiisa, wuxuuna qaaday mas-uuliyadda markii ay wax qaldameen. wuxuu fahmay sharciyada adduunka saboolka, wuxuuna u isticmaalay inuu dhibaatooyinka xalliyo. shirkadiisa taksiyada waxay u kortay si tartiib ah, iyadoo si toos ah u qabsatay suuqa deegaanka. wuxuu sameeyey hanti badan, wuxuuna noqday ganacsade caan ah oo deegaanka ah. si kadis ah, Balram wuxuu wargeyska ka ogaaday in magaaladiisii ay ka dhacday xasuuq qoys dhan oo ka kooban 7 qof oo la dilay. Balram wuxuu hubay in tan ay ahayd aarbudasho ka timid qoyska milkiilaha, laakiin weligii kama qoomamayn go'aankiisa. inkasta oo baxsashadiisa aanay ahayn mid sharaf leh, waxay ahayd dariiqadiisa keliya ee uu uga baxo xaaladaas quusta ah.